بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada jalalkeena gacmo furan iyo qalbi saafi. Waxaa idiin soo dhaweynaya Soomaali weyn, waan idin salaamaya meel walba joogtaan. Maalin wanaagsan. Maanta waxaa ka hadlaynaa nolosha sida isku bedasho iyo imtixaanada nolosha anagana soo maro ka bini aadan ahaan iyo sida u qaabilno iyo sababta aan u kala duwannahay anagoo dhan. Maxaa u kala duwannahay? dadka qaar hubaal isku bii'aday ka imaadeen, isku meelay ka imaadeen, haddana qof waa guuleysanaya, qof ma guuleysanaya. macnaheeda maaha inaad dadka isla barbar dhigaysid aad dhehaysid hebel iyo heblaay iyo aniga aad dhehaysid maaha, maya. laakiin caamatan nolosha ka hadlayna. nolosha markaa u fiirsatid dadka isku risiq maahan. guusha laftigeeda risiq waay, inkastoo ay ku xiran tahay dadaalkaaga, haddana risiq waay ilaahay subxaana wa tacaala oo ku siinayo. ilaahay subxaana wa tacaala asagaa qaybiya arsaaqada soomaha dadka in ay kala fadli leeyihiin, ay kala sareeyaan. kala sareyntaas oo ah risiqi inay ku kala duwan yihiin, aqoontii inaan ku kala duwannahay, maxaa la dhahaa, caafimaadkii inaan ku kala duwannahay, wax kasta inaan ku kala duwannahay. dunida markaan saaranahay wax walbo subxaana wa tacaala qofka intuu ugu talagalay ayuu ka qaadanaya. dadka qaar waxaa arkaysaa markay dadaal fara badan ay sameeyaan oo wixii sida ayaga ay rabeen noqon waayaan in niyad jab oo ku imaado. maya, ha niyad jabin. nolosha wax weyn maba ahanba, si walbay u weyn tahay wax yar waay, waa dariiqa goynaysid waay. laakiin maaha macnaheeda haddana dariiqaas aa goynaysid inaadan waxba ugu tagaynin, inaadan raad ku yeelanaynin oo raad aadan ugu tagaynin. macnaheeda maaha raad ayaa ugu tagaysaa. weliba haddaa jeceshahay raad wanaagsan in lagu soo xasuusto waa ka tegi kartaa adigii doorashadaada. waa inkastoo dadka qaar ay raad xun kaga tagayaan, laakiin qof walba markuu geeriyoodo, annaga Soomaali haddaana qofkii geeriyoodo qof wanaagsan ayuu noqonayaa. laakiin ka cabso xisaabta adiga iyo ilaahay idin hortaalo iyo bini aadanka ka samaysa maalinta aad ilaahay hortaagan tahay. taas kaliya ka cabso. waayo bini aadanka maalinta geeriyootid waxaa waaye in badan waxaa arkaysaa haddaa ammaan rabtid waxaa waaye dhimo ay dhahaan Soomaalida. qofkii geeriyooda inaan waxaa waaye in xoogaa laga gaagaabsanayo. marka dadka maxay u kala sareeyaan? dadka qaar fursadihii heleen, dadka qaarna fursadihii meelin. dadka qaar ayagoo fursadihii heleen ayaa qofna aanu ka faa'iideysanin, qofna uu ka faa'iideysto. wax walba ayadoo qadar ay yihiin, qoraal ay yihiin, haddana mar walba waxaa waaye doorashada annagaa leh sooma. jannada iyo naarta in la shaqaysto waay. ilaahay subxaana wa tacaala wuu qoray. qof walba waxaa marka warkoodiis ku jiray ayaa loo qoray meeshuu maraayo, janno iyo naar u galaayo. haddana maxaa lagu siiyey? doorashaa lagu siiyey. doorashadaas oo ikhtiyaarkaaga ku tag. soo waxaa samaysid ayaa ku gaaraysaa adiga iyo camalkaaga sooma. naxariista ilaahay oo jannada lagu taga, camalkaaga keliya laguma taga. naxariista ilaahay mar walbo ilaahay naxariistiisana uu geeyay jannada. camalkaaga keliya maha, laakiin mar walbo oo jidka wanaagsan ahaysid waxaa waaye naxariista ilaahay ayaa ku caawinayso. waxaa waaye maadaama aad tahay ahlu tawxiidkii, jannaa galaysaa insha allah biidni illaahi alkariim. marka doorashaana la siiyey sooma. noloshana saas waay. qofkan waxaa waaye fursaduu helay, adigana waa heshay. qofkan wuu ka faa'iideystay. laba qofoo waxaan ka hadlaya hadda fursadii isla helay. qofkan waa ka faa'iideystay, qofkii kale waa ka faa'iideysan waay. qofkii aan ka faa'iideysanin macnaheeda ma aha inuu yahay qof guul daraystay. macnaheeda ma aha, waayo risqigiisii ma aha waxaas oo qofkaas kale uu ku guuleystay. asaga risqigiis ma, risqigiis waxaa waaye meel kale inuu ku jiraa laga yaaba ay tahay inuu raadiyo. qofkii uu raadiyo wixii ayay tahay. marka subxaan allah, irsaaqada asaa qaybiya sooma. haddana dadaal ayaa lagu kala gaara. waxaa arkaysa dad hal meel kasoo wada baxay, hal bii'a ka wada imaaday, haddana qof uu yahay nooc, qof uu noqday qof aad u dadaalay oo wax bartay oo heer sare gaaray, qofna uu yahay zero, meesha uu ka imaaday weli inuu taagan yahay oo naftiisii aanu horumarin. labadaas qofood hal meelay ka wada imaadeen. qofna waxaa waaye haayuu noqday, qofna waxaa waaye meel hoosuu noqday loowa. maxaa keenayo? qof walba doorashadiis waa asaa doortay. asaa doortay waxyaabo badan oo waxaa jirto
oo doorashadeena iyo waxyaabo badan oo aan doorashadeena ahayn ayaa jirta nolosha. oo risqiga oo kaleente arsaaqada adiga aa leedahay oo qaadanaysid si walba oo u dadaashid risqi kii ilaahay kugu talagalay oo kaliya ayaad leedahay si walba oo u dadaashid. waayo arsaaqadaada ilaahay ayaa wuxuu dhahay marna waa qadaraya marna waa badinaya sooma marna waa yareynaya uu dhahay marna waxaa waaye waa badinaya. dadka qaarna waa u badinaya dadka qaarna waa u yareynaya markii qur-aanka loo fiiriyo meelo badan subxaan allah. sababta dadka qaar loogu badinayo waxaa waaye ilaahay og xikmada ku jirto. dadka qaar sida sababta loogu yareynayan ilaahay og xikmada ku jirto. haddana kaama reebin in adiga dadaalkii aa samaysa aadan dhihin ilaahay saanu dhahay aniga biswaa iska fariisanaa maya. waa inaad raadisid waa inaad raadisid malaha meesha aad ka raadinaysid meesha saxda aheyd maaha. meesha kaleente aad ka helaysid waa inaad soo heshaa adiga sirti waa inaad adiga aad soo heshaa. waxaa waaye waxbaa muddo sameynaysaa muddo dheer aa sameynaysaa dadaal walbaa gelinaysaa juhdigaagaa gelinaysaa wax walbaa u sameynaysaa wixii ma guuleysanaa. macnaha waxaa waaye ciyaar le waaye waxaan lacib saqiir le waaye meeshaan ma aha waaye marka waxa adiga aa ku guuleysanaysa ama risqaaga aa ka helaysid ma aha meel kaleentuu ku jiraa raadi wixiina iska wadwad wax haddaanay dhibaato ku keenayn iska wadwad. marka nolosha saas waay qofna ilaahay waxaa waaye waa u qadarayaa fiiri irsaaqada subxaan allah fiiri owlaada caafimaadka waxaasoo dhan ilaahay subxaana watacaala asaga ayaa samada kasoo qaybinaya soo maha samadoo kasoo qaybinaya. qof waxaa arkaysaa waxaa la siinaya caruuro fara badan ayaa la siinaya haddana waxaa arkaysaa ugu dambeyntii caruurtiisi inaanay la nooleenbo. caruurihii waa dhashay caruurtiina ma kula joogaa keligaa ina guri ku hoynaysa laga yaaba caruur badan aa dhashay. qofna waxaa arkaysaa subxaan allah ilaahay inuuna ubad siinin haddana ubad badan oo guriga kula nool yahay oo maxay ahaatay dareenkii waalidnimadii uu dareemayo oo guriga uu kula nool yahay ubad qaraabadiisa walaalihiisa ay dhaleen kula nool yahay uu dareemayo subxaan allah. nooc ka mid ah waa asaga xataa ee risiq waay in wax ilaahay aanu ku siinin laakiin meel kaleente oo bedelkaa siinayo oo kugu bedelayo. marka weligaa nolosha ha u xanaaqin hadday isbedesho hadday noqon weyso sida adiga aa rabto hadday noqon weyso ha u xanaaqin see tahay u qaado waayo wax weyn ma ahan waxaas aan weyneyn. haddana waxaa waaye waxaa waajibkaaga in aadan dhihin wax weyn maahan waa iska seexanaa. maalinta qiyaamaha hadduu dhacaya nabigeena waatuu dhaca calayhi salaatu wasalaam qofkii waxaa waaye wax inuu beeri rabo gacanta ku hayo ha beero haddii qiyaamaha uu taagan yahay. so adi hadda ma dhihaysa ani waa dhimanaya maxaa iga gala ma dhihaysa waayo dadka kaa haraayo oo kaa dambeeya inaa manaafacaad iyo wax aa ugu tagtid oo wanaagsan ay kugu soo xasuustaan ama ay kaa faa'iidaan waa waajibka. marka nolosha waxaa arkaysaa mararka qaar si u socoto inay kugu soo leexanayso. leexashadaas waa mayaasha loo baahan yahay ama marka tan adiga ku bedelayso waay tan adiga ku bedelayso maxaa waaye nolosha iska socoto wax isbedel ah malaha rootiinka maalin walba isla wixii asuubisa. laakiin tan hurdada kaa kicinayso ee ku dhehayso ka kac heblaayo amba hebelow hurdada ka kac taas waay tan adiga ku bedelayso oo meel sax ay ku gaarsiinayso waay. marka ha caroon haddii sidaa rabta ay noqon weydo waxaa waaye waxaa soo socdo isbedel qurux badan ayaa soo socdo. laakiin isbedelka maxaa kasoo horeeya wax walba oo wanaagsan waxaa kasoo horeeyo juhdi iyo dadaalaa kasoo horeeya. wax walba oo wanaagsan waxaa kasoo horeeya digniintii waa digniintaasoo in noloshaada carqalad ay noqoto in sidaa rabti ay noqon waayaan in mararka qaar aad tiraahid quus aa gaartid aad tiraahid acuudu billahi min ashaytaan rajiim maxaa waaye noloshaan saan dhahdid ha quusanin. meeshaas waa meesha awoodaada la tijaabinayo ay tahay in adigana aa la soo baxid awoodaadii gaartid meeshaas taagan tahay meel ka fiican aa gaartid. awoodda say ku gaaraa waa gaaraysaa waayo markii ciriiriga iyo ciilka uu kaa bato waxaa waaye waa sameynaysaa wax walbo oo adiga danku ah. wax walba waxaa garanaysaa adiga maslaxadaada wax walba waxaa fahmaysaa aniga waxaan maxaa faa'iido iigu jiro anaaniyad maahan adoon dhib dadka aadan u geysanaynin. laakiin muhiimad inaad saartid gudahaaga attentionka aad siisid adiga qofka muraayada aad ka arkaysid gudahaagan aad aamintid inuu leeyahay awooddaasna ay tahay awood ilaahay subxaana watacaala uu la jiro
oo ilaahay haddaanu kula jirin adiga waxba ma aadan qabateen soo maa markay nolosha ciirto maasha allah tabaaraka allah xoogaa waa ciishoone xoogaa waa oyne xoogaa waa dhibtoone laakiin markaas waa meesha isbedelka uu ka imaanayo markaa gaartid marxalad aniga wax aan khasaarayo malahan wax aan haysto malahan wax waaye markaa gaartid markaas waa meesha isbedelka u imaanayo oo cabsida aad horta dhigtid meel waxa aad ka cabsanaysa aad soo tuurta aad tiraahid aniga maya ma cabsanayo waa samayn karaa waa yeeli karaa muhiim ma aha aragtida dadka waxay dhahayaan muhiim dadka qaar waxaa laga yaabaa in ay xarig ugu xiran yihiin ee dadka maxay dhihi doonaan dadka shaqadaada ma adiga naftaada mas-uul ka tahay dadka maadaama aadan waxba u dhimaynin danahaaga raaco dadka kaba soo qaad inayna joogin kasoo qaad inayna maba arkoosid dadka adiga kasoo qaad yani maaha isla weyni maahan laakiin dadka maxay dhihi doonaan taas inaad horta dadka maxay dhihi doonaan inaad horta meesha aad ka saartid waxa aad samaynaysid naftaada u samaynaysaa muhiim maaha dadka waxay ku dhahayaan dadka qaara xarig ugu xirxiran oo waxaa waaye haddii ay samayn lahaayeen labalabeynayo wax haddii dadka maxay ku dhihi doonaan ka cabsanayo dadka shaqadaada maaha dadka uma noolid samee waxaa dhehaysid beriyaa sameynaa hadda samee hadda sanad walba waxaa waaye waxaan qoranaa goola la qoranaa sama hadafyadii maxaa kuu hirgelay hadda buugi fiiri waxaan kuu hirgelin hadda bilow wixii kuu hirgelay waa kuu hirgelay haddana wax cusub bilow marka taada markaa bilaabta inaad attention gudahaaga aad siisid noloshaada wax badan ayaa iska bedelaya waana rajeynaya wax badan in iska bedelaan oo dhinac wanaagsan ay u bedelmaan waana ku mahadsan tahay daawashadaada iyo waqtigaaga qaaliga aad siisay